Assalaamu calaykum. Vladimir Putin wuxuu Russia xukumayay laga soo bilaabo 1999kii. Wadanka waxa uu ka dhigay keligii talis iyo bulsho ciidan ah. Sidoo kale intuu xukunka hayay wuxuu duulaan ku qaaday laba dal oo daris la ah Russia. Wuxuu sidoo kale xiriir adag la yeeshay Syria iyo Iran. Wuxuu isku dayay inuu dib u riixo nidaamka dalalka galbeedka. Waxayna u egtahay mid uu ku guuleysanayo arrinta. Si aan u fahanno sida hal nin uu awooddaas oo dhan ku yeeshay, waxaan u baahannahay inaan dib ugu laabanno waqtigii Russia ku jirtay foodada iyo musuqmaasuqa kadib dhicitaankii Soviet Union ama Midowgii Soviet. Markii la dumiyay darbigii Berlin, Putin oo 40 jir ahaa waxa uu jaajuus qarsoodi ah kaga shaqaynayay bariga Germany, isagoo ka tirsanaa hay'adda sirdoonka Midowga Soviet ee loo soo gaabiyo KGB. Midowgii Soviet waxa uu qaybsamay 15 dal oo ay ka mid ahayd Russia Federation, laakiin Putin waxa uu aaminsanaa in Russia lumisay 2 milyan mayl oo square ah, waxaana uga magac daray inay tahay musiibadii ugu weyneed ee juqraafi siyaasadeed ee qarnigan oo dhan. Inta badan hantida dadweynaha iyo ganacsiga waxay gacantooda gashay koox yar oo maalqabeena ah, kuwa oo maanta Russia looga yaqaano oligarchs, waxayna noqdeen koox siyaasadda saameyn iyo gacanba ku leh. Isla waqtigan, dowladda cusub ee Russia waxaa la daalaa-dhacaysay dhismaheeda. Madaxweynihii ugu horreeyay Russia yeelato burburkii Soviet kadib, Boris Yeltsin, wuxuu ahaa mid aan la jeclayn sababtoo ah waxa uu xiriir wanaagsan la lahaa Mareykanka oo ah cadowga Russia iyo Midowgii Soviet. Taa waxaa ka sii darnayd inuu ahaa alcoholic, khamradana zaa'id u caba. Dad badan oo u dhashay Russia waxay u arkayeen inuu yahay mid ceebeynaya dalkooda. Si xukunka ku sii joogo, waxa uu awood badan oo siyaasadeed siiyay kooxdii aan kor ku soo sheegnay ee oligarchs. Xaaladdu way sii xumaatay. Sovietkii waa uu burburay. ninka Russia xukumi doono 20 sano, Vladimir Putin ayaa ku biiray siyaasadda. Wuxuuna ka tagay shaqadii jaajuusnimo 1991kii, wuxuuna noqday ku-xigeenka maayarka magaalada St. Petersburg. Putin isagoo isticmaalaya awoodda booskiisa wuxuu saaxiibadiis ka caawiyay ganacsiga iyo faa'iidooyin dheeri ah, isagoo ka dhigay monopoly ama in iyaga kaliya suuqa ku jiraan, sharciyo adagna dul saaro dadkii la tartamayay saaxiibadii. Putin oo si dhaqsi ah ku noqday qofka loogu jecel yahay kooxdii oligarchs dhexdooda, wuxuu caawiyay maafiyada iyo sirdoonka, kuwa oo dhammaan wada ahaa saaxiibadii ay iskula jireen hay'adda sirdoonka ee KGB. taa beddelkeedan waxay ka caawiyeen inuu ka mid noqdo dadka ugu sarreeya dalka. 1999kii, madaxweynaha Russia Boris Yeltsin ayaa Putin u magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka, isagoo aan si fiican looga aqoon siyaasadda. maadaama NATO ay ku fidaysay dalalka dhawaan dhashay oo ka go'ay Soviet, ujeedadiisu waxay noqotay inuu Russia ka dhigo dal awood badan gudaha iyo bannaankaba, faragelinna ku yeelato dalalka dariska ah. wuxuu si dhaqso ah ku helay fursad intii lagu guda jiray dagaaladii iyo foodadii ay ku burburtay Midowgii Soviet. waxaa jiray rabshado ka socday Chechnya oo ah gobol si aan dhammaystirnayn kaga go'ay Russia 90maadka. 1999 August, qarxyo ayaa ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee Russia sida Moscow, kuwa ay ugu yaraan ku dhinteen 300 oo qof. Putin oo ahaa ra'iisul wasaaraha markaa la doortay, wuxuu isla markii dhaleeceyn dusha ka saaray Chechnya oo rabta inay si dhammaystiran u go'aan. wuxuu bilaabay inuu ka soo muuqdo TV-yada isagoo dhahaya waan argoosan doonaa. intaa kadib wuxuu helay taageerada shacabka, isagoo markii hore haystay taageerada dalka 2% keliya, laakiin qarxyada kadib waxa uu gaaray 45% taageerada dadka. saxaafadda Russia ayaa markii dambe sheegtay in sirdoonka Russia ku lug lahaayeen qarxyada Moscow, iyagoo awood ka helaya Putin. wax yar uun kadib, Russia ayaa dagaal caan ah ku qaaday Chechnya, waxayna duqeymo ka geysteen caasimadda Chechnya, waxaana la qiyaasaa inay ku dhinteen 80,000 oo qof. sanad gudihiis, Russia waxay ku guuleysatay inay xukunkeeda ku soo celiso dhulkii Chechnya. December 1999, waxaa is-casilay Boris Yeltsin oo ahaa madaxweynaha, taa oo Putin ka dhigaysa inuu dhammeeyo xilliga madaxweynaha. bishii May ee 2000 waa doorasho, waxaana ku guuleysanaya Vladimir Putin. waxa uu bilaabay inuu dhiso Russia cusub, kuna dhiso ra'yigiisa iyo aragtidiisa, laakiin musuqmaasuqa ayaa noqday waxa Putin uu weli sii isticmaalayo. laakiin oligarchs iyo kooxdii yareed ee xukunka waddanka qayb ka lahaa wuxuu keenay hoostiisa, oo kuwii caawiyey oo uu abaalmariyey, halka kuwii kalena uu meesha ka saaray gebi ahaanba. isaga oo ay garabkiisa taagan yihiin oligarchs, Putin wuxuu aragtidiisa ku faafiyey bannaanka Russia. waqtiga Putin xiriirka uu lahaa Mareykanka waxa uu ahaa mid fiican, weliba mararka qaar Putin waxa uu fasaxa xagaaga ku qaadan jiray guriga George W. Bush. laakiin xaaladdu sidaa ma sii ahaan doonto oo waa isbedeli doontaa. bishii August 2008,
Russia waxay duulaan ku qaaday Georgia oo ahayd qayb ka tirsanayd Midowgii Soviet. Isla markiiba Russia waxay gacanta ku dhigtay laba qayb oo yaryar oo ka mid ah Georgia, taa oo ku soo jeedisay indhaha caalamka oo dhan. Waxaa muhiim ah in la sheego in Putin uusan ahayn madaxweynaha Russia markan, sababtoo ah dastuurka waddanka Russia waxa uu sheegayaa in madaxweynuhu kaliya 2 mar oo isku xigta xilka qaban karo, laakiin dastuurku ma sheegin guud ahaan inta mar uu madaxweynuhu xilka qaban karo. sidaa darteed markii Putin uu dhamaaday 2 mar ee isku xigtay ee ahayd 2000 ilaa 2004 iyo 2004 ilaa 2008 waxa uu mar kale ku laabtay xilka ra'iisul wasaarenimo, wuxuuna xilka u dhiibtay Dmitry Medvedev ka oo isaga kor ka maamulayay. isla waqtiga Barack Obama ayaa madaxweyne loo doortay Mareykanka, wuxuuna Obama isku dayay inuu wax ka bedelo xiriirka labada dal, Mareykanka iyo Russia, waxayna heshiis ku gaareen inay xad u helaan awoodaha nuclear-ka ee labada dal. laakiin Putin oo iska indhatiraya hadalladaas wuxuu ka xanaaqay faragelinta ee Mareykanka ku hayo bariga dhexe, gaar ahaan Liibiya. sanadii 2011 wuxuu si cad banaanka ugu dhaleeceeyay madaxweyne Medvedev inuusan isticmaalin codka veto-ga ah waxyaabaha Mareykanku samaynayo. Putin ayaa isku soo sharaxay mar kale xilka madaxtinimo doorasho ee 2012 wuxuuna ku guuleystay 63% codadkii la tiriyay. Putin wuxuu teemkiisii saddexaad ku bilowday foodo, waxa uu sii laba jibaaray keligii talisnimada, wuxuu kor u sii qaaday istiraatiijiyadda militari ee dalkiisa ku leeyahay dibadda. Putin markuu xilka qabtay laga soo bilaabo 2000 waxa uu dhammaan TV-yada ka dhigay kuwa faafiya propagandada xukuumaddiisa. nidaamkiisa ayaana ogolaada ama diida waxyaabaha TV-yada laga baahiyo, waxayna mar walba u sawiraan inuu Putin yahay hogaamiye awood leh. 2012 wuxuu jabiyay xuquuqda bini'aadamka iyo kuwa kale oo badan. Putin wuxuu adkeeyay istiraatiijiyadda militari ee dibadda, wuxuu hub u diray Syria si uu u caawiyo dictatorka Bashar al-Assad si uu xukunka u sii joogo. sidoo kale Putin waxa uu dhisay kuwa adduunka ugu casrisan uguna awood badan ee ciidamada internetka ama loo yaqaano cyber army, wuxuuna u isticmaalay inuu ku burburiyo galbeedka. ciidankan ayaa ku guuleystay inay xadaan xog sir u ahayd Mareykanka, waxay hagareeyeen emailada siyaasiyiinta Mareykanka, sidoo kale waxay damiyeen dhammaan internetka dariskooda Georgia intii uu socday dagaalkii 2008. tii ugu weyneyd waxay ahayd markii ay jabsadeen emailka Hillary Clinton intii lagu guda jiray ololihii doorashada Mareykanka ee 2016. sidoo kale waxay abuureen propaganda ay ku taageerayaan in la doorto siyaasiyiinta midigta fog ee xilalka ugu tartamaya qaaradda Yurub. waxaa la dhihi karaa inuu u sameynayo arrinkan inuu badiyo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee Yurub. 2014 Putin waxa uu go'aansaday inuu ku duulo Ukraine oo mar ka tirsanayd Midowgii Soviet, kadib markii madaxweynaha Ukraine uu bilaabay xiriirka dalalka galbeedka kadibna uu ku biiro NATO. laakiin Russia ayaa ku furtay propaganda looga soo horjeedo madaxweynaha Ukraine, taa ayaa sababtay in mudaharaadyo ballaaran ay ka dhacaan bariga Ukraine, halka oo ay ku badan yihiin dadka raba inay Russia dib ugu laabtaan. wax yar kadib ciidamada Russia ayaa galay Ukraine gobolka Crimea. caalamka oo dhan ayaa dhaleecayn iyo banaanbaxyo looga soo horjeeda sameeyay, laakiin Putin ahmiyad weyn ma siin arrinkan. weerarkii Ukraine waxay sababtay in cunaqabatayn xooggan la saaro Russia, taa waxay keentay in ay suuq waayaan ganacsiga Russia. jaasuusnimo ilaa madaxweyne awood badan. Vladimir Putin hadda waxa uu dhexda kaga jiraa teemkiisa afaraad oo ku eg 2024. waxaa indhaha lagu hayaa siduu ka yeeli doono ama uga xeeladeysan doono markan.